السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دواada warkii oo cusbadu nagaga dhacday sidii caadadu noo ahaydba dhanka ciyaaraha haddaan ku horeeyo naadiga Liverpool oo maanta ma fiiq ku eriyay kooxda Manchester United fanaanada koobaad ee geeyiga Soomaalida Fartuun Birimo oo codsi reer aakhirada ka heshay junuud ku nool degmada Awaare ee gobolka Jarar roobab masaabiir iyo midiyo wato oo ka dhacay xaafada ay deegaan Soomaalida burka lagu islaamiyay ee loo yaqaan Sujuuga biyaha xeebta berbera oo ka dacwoonaya dadka iyagoon istiijaysan ku dabaalanaya iyadoo baddu hargab iyo madax xanuun ka qaaday isagu yiri afayeen Hoonbaro ilaahna xariistiisa ka qariya waxa maanta aas qabiil loogu dareeray xildhibaankii hore ee xisbiga fadhi ku diray xildhibaan Beef Puff ciidamada xordabacad oo xalay dagaal baan ku qaaday isbitaalka digaaga ee ku yaala xaafada 150 waxa halkaas naftoodii ku waayay 17 xafasha 12 dhalay rabay 3 armal ahaa waqtigaas 40 la laayahay iyo waliba 13 dhaawac mar wacaashay urur 76 jir ku jirtay digaagii meesha ku dhaawacmay iyada oo ay suurto gashay inaan warays la yeesho mar way urur waxa ay tiri sida tan waxa aan ku fadhiyay carruurtayda markii aan ku war helay qiiq iyo boris xidhay qolkii aan fadhiyay ilaa hadda ma garanayo in carruurtayda nabad qabtay in kale sababtuna ay tahay bay tiri cadawga oo isticmaalaya hubka kala caagadaha kookaha furarka falaasadaha qoryaha kabriidka iyo shaandooyinka shaaha iyagoo aan kala eegin bay tiri diiq iyo digaagadba mar way urur oo hadalkeedii si wadato waxa ay tiri waxaan ka codsanayaa beesha caalamka in wax ka qabato hadii kale ukun dambe aan cidi ku quraacanayn waxa saaka bilaabmay olole lagu faafinayo cudurka shaqfirta iyadoo 10 maalmood u dambeysay mashruuc guul ka gaaray sidii loo wada qabatin lahaa dhammaan bulshada ku dhaqan xaafada Inamooge daawadayaal waxa intaas naga eeg war wixii xabaalahan ka soo faqnay haatan dhanka salaamaha iyo muusiga caawa habeenkii caashaqa waxaan halkan ku hayaa warqad jacayl wuxuu yiri Ismaaciil Suuxaaye waxaan halkan salaan ka soo go'day taqsiintayda daruuraha oo marinaya saaxiibaday Zainab Fiidmeer oo ku nool guud wadanka Mareykanka gaar ahaan xaafada Cayda warqad kale ayaan gacanta ku hayaa waxa ay leedahay aniga oo leedahay Muno Shanboqolay waxaan halkan salaan expire ah u dirayaa saygayga Axmed Siciid Qulumbaamadow oo ku nool baytri xaafadaasi birta ee magaalada Hargeysa warqad kale ayaan gacanta ku hayaa waxay leedahay aniga oo ah dameer sarqaansan waxaan halkan salaan iyo bogaadin beerka kaga dhufanaya walaashay odaygeeda oo maalmahan bageed gaaban aan isugu jirnay daawadayaal waxa intaas noogu eeka barnaamijkeeni salaamaha balimikana aan u gudubno qaybta heesaha daawadayday dahabiya xariiray dugsi lagu nagaaday dumartaan ka doortay damaciyo damiinimo doqonnimo ka doogtee daa'imiyigu deeqaay diinteenu saytiri duntaan ku soohdee darma ugu fadhiistee daacadii ahaatay deegaankeenna wacan dalxiisaan u aadnee doonta soo raac daala aan degnee durba soo fuul aynu duulnee damar ku soo bood الله ياكو داوض تضبكو حريستا دولي كافوغية دنبي كالا وعدا دبادير هبينكي دخل كوغو أفوفا مثل هير توابري فيتامين سي كوغو قراعية